kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada warka Misla TV. Qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashada gudiyada labada gole ee Somaliland ku matalaya Soomaaliya, Bangkok oo ay ruuxeen mudaharaadyo aad u ballaaran iyadoo ay booliska iyo shacabka ay isfara saareen. Nigeria oo lagu dilay in ka badan 10 askari iyo beeraley iyadoo ay 4.4 milyan oo dad ay wajahayaan macluulaad u daran. tahriibayaal uu Talyaanigu badbaadiyay halka 394 kalena ay weli badda dhexdeeda sabaynayaan iyaga oo la cid qaabisha. Israa'iil oo duqeyn ka geysatay Gaza haatanna xogaha aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar yar oo xayeysiina kadib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida tooska ugu xirantiin Misla TV. markasta iyo meel kasta oo kala joogtaana waxaad nooga barateen inaad la wadaagno barnaamijyo iyo waliba wararkii u dambeeyay ee geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. haddaad tahay qof nooga cusub fadlan subscribe saar channelka si aad ula socoto markasta wararka iyo warbixinada barnaamijyada wata ee soo gelino bartan. waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. ballanteenu waa barnaamijyo tayo leh, warar xiiso leh iyo walba dhacdooyinkii u dambeeyay ee geega Soomaalida iyo guud ahaan caalamka. afar xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa maanta doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen kadib markii maanta guddiga doorashooyinka garabka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ay doorteen guddoon cusub. garabka Cabdi Xaashi ee guddiga maamulaya xulista kuraasta gobolada waqooyi ayaa mar kale gudoomiye u doortay Suleymaan Caydiid Cismaan halka ay ku-xigeen u xusheen Cabdishakuur Abiib Xayir. Tallaabadan waxay u muuqataa mid ay uga jawaabayaan codeynta Sabtidii maanta ka dhacday teendhada Afisyoone ee xukuumadda xilgaarsiinta iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ay garwadeenka ka wada ahaayeen. Qadar Xiriir Xuseen ayaa loo xushay gudoomiyaha guddiga ee garabka Mahdi Guuleed halka Najiib Xuseen Samatar uu ku soo baxay ku-xigeenka kadib markii uu ka adkaaday Amaal sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka heer federaal. qodobka ugu culus ee dhinacyada isku hayaan ayaa ah Cabdi Xaashi oo doonaya in doorashada guddoonka lagu heshiiyo iyo dhinaca kale oo ka faa'iideysanaya tirada badan ee xubnaha guddiga ay ka haystaan. dhinaca Cabdi Xaashi ayaa ah kaliya guddi ka kooban 4 xubnood walow Guuleed guddigiisu uu haysto 4 xubnood haddana waxa uu weheliya 3 kale oo Rooble uu soo magacaabay kuwaasoo u janjeera sida la sheegay dhinaca Mahdi Guuleed. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee federaalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa hambalyo degdeg ah u diray guddoonka garabka ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland ee SAIT oo maanta isku doortay Muqdisho. qoraal daqiiqada kadib ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble kadib doorasho khilaaf hareereeyay oo isagu amray ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ku booriyay xubnaha guddoonka la doortay inay dardargeliyaan sida ugu dhaqsaha badan doorashooyinka iyaga oo kaashanaya guddiga heer federaal ee FAIT. isla doorashooyinkan ku jirnay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa si adag kaga hadlay arrimaha ku aadan doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan tan hoggaanka guddiga gobolada waqooyi ee maanta ka dhacday Muqdisho. Faysal Cali Waraabe ayaa wali ku tilmaamay dad kale doorashadii Somaliland ee aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa ka dhacaysa magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay. sida oo kale waxa uu ku tilmaamay in waxaan suurtagal ahayn ay tahay in xamar lagu dhiso guddi matalaya Somaliland. wararkii dibadda in ka badan 1,000 mudaharaadayaal ah oo ka soo horjeeda dowladda Thai ayay isku dhaceen booliiska Sabtidii maanta iyagoo oo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan dowladda oo wax ka qaban weyday faafitaanka cudurka coronavirus-ka iyo saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha wadankaasi. qiyaastii 100 askari oo boolis oo wata qalabka rabshadaha looga hortago ayaa xiray waddo u dhow taalada guusha ee caasimadda Bangkok iyaga oo wato gawaarida qafilan waxayna adeegsadeen biyaha sida madaafiicda u dhacay kanooniga ah, gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta cinjirka ah si ay u joojiyaan socday mudaharadayaashu rabeen inay ku tagaan guriga dowladda gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha.
gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta cinjirka ayaa loo isticmaalay xakamaynta dadka. Hadafkaygu waa in aan ilaalino kala dambeynta. Krishna Patana oo ah afhayeenka booliska ayaa wariyayaasha hadalkaasi ku yiri, isagoona raaciyay in dibadbaxayaashu ay tuurayeen bambooyin, dhagxaan iyo marmar oo ah wax u samaysan sidii kuusha oo kale ama baliisha. 10 qof oo mudaharaadayay ayaa la arkayay iyaga oo lagu qaadayo mootooyinka iyo ambalaasyada. Xarunta caafimaadka degdega ee Rawana ayaa sheegtay in ugu yaraan 2 qof oo rayid ah iyo 3 sargaal oo ka tirsan booliiska ay dhaawacmeen. Waxaan doonaynaa inuu ra'iisul wasaaruhu iscasilo maxaa yeelay dadka ma aysan qaadan tallaalka looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus-ka, ayuu yiri nin mudaharaade oo da'diisu ay tahay 23 jir oo magaciisa koobaad kaliya bixiyay isaga oo ka baqaya inay saameyn ku yeelato haddii uu dhammaystiro magaca. Ma lihin shaqooyin iyo dakhli, sidaas darteed ma haysano waxaan ka ahayn mudaharaad. Qiyaastii 6.5 dadka reer Thailand oo ka badan 66 milyan ayaa si buuxda loo tallaalay. Inta badan dalka oo ay ku jirto caasimadda Bangkok waxa ay ku jirtaa xanibaad bandow habeenkii. Isu imaatanka in ka badan 5 qof ayaa hadda mamnuuca. Si kastaba ha ahaatee, mudaharaadyada wadooyinka waaweyn ee Bangkok laga dhigayo ee looga soo horjeedo dowladda ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa qabanayay dhowr kooxood oo ay ka mid yihiin saaxiibadii hore ee siyaasadda ee Playsouth, iyadoo ay jahwareerku ka dhashay maamulka dhibaatada caafimaad. Thailand ayaa Sabtidii ka warbixisay ku dhawaad 22,000 oo caabuqyada COVID-19 oo cusub maalin gudaheed iyo dhimashada ugu badan 212 dhimasho ah. Wadanka koonfur bari ee Aasiya ayaa soo sheegaya 736,522 wadarta kiisaska iyo 6,066 dhimasho ah oo uu sababay cudurka safmarka coronavirus tan iyo markii uu faafay cudurkan sanadkii hore. Markaana tahriibayaal lasoo badbaadiyey. Markab siday 257 muhaajiriin ayaa kusoo xirtay dekedda Trapani ee Talyaaniga Sabtidii maanta, ku dhawaad 7 kadib markii uu dadka kasoo badbaadiyey biyaha caalamiga ee Tunisia. Muhaajiriinta saarnaa markabka oo u badnaa rag ka yimid Morocco, Bangladesh, Masar iyo Suuriya ayaa bilaabay inay u gacan haatiyaan una sacabtumaan markabka oo uu maamulo urur Jarmal ah oo loo yaqaano Sea-Watch kadib markii uu ku soo dhawaaday dekedda Trapani ee jasiiradda Seychelles ee wadankaasi Talyaaniga. Mid ka mid ah muhaajiriintii lasoo badbaadiyey ayaa waxa uu ku fadhiistay saqafka waxa uuna kor u qaaday calaamad ay ku qoran tahay Talyaaniga wanaagsan. Muhaajiriinta lasoo badbaadiyey ayaa laga baarayaa cudurka COVID-19 ka hor inta aan lagu wareejin markab karantiil ah, halkaas oo la filayo inay ku sugnaadaan 2 toddobaad si looga digtoonaado faafitaanka cudurka coronavirus-ka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaasi warisay. Sea-Watch iyo Ocean Viking oo ah markab ay maamusho hay'ad samafal oo reer Yuruba oo lagu magacaabo SOS Mediterranean ayaa 394 muhaajiriin ka soo qaaday dooni alwaaxa oo si aad u buux dhaaftay xilli ay sabeynaysay badda Mediterranean-ka Axadii lasoo dhaafay, waxayna tan iyo xilligaasi raadinaysaa deked ay ku xirato iyo wadan ogolaado inuu qaato muhaajiriinta. Badweynta ayay weli ku jirtaa Viking iyada oo la cid martiqaada ama gargaar u fidisa muhaajiriintan. Doonyaha muhaajiriinta ee ka ambabaxaya Liibiya iyo Tunisia kuna sii jeeda Talyaaniga iyo qaybaha kale ee Yurub ayaa kordhayay bilihii lasoo dhaafay cimilada oo kulul awgeed, sida laga soo xigtay ururka caalamiga ee socdaalka oo xiriir la leh qaramada midoobay. In ka badan 1,100 qof oo ka soo cararay iska horimaadka iyo saboolnimada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sanadkan ku dhintay badda Mediterranean-ka.
haatanna aan u weecanno dhankaas iyo Nigeria. Ugu yaraan 4.4 milyan oo caruur iyo dhalinyaro ah ayay gaajo ba'ani ku haysaa waqooyi bari ee Nigeria, halkaas oo fallaagada Islaamiyiinta ay ku qasbeen beeraleyda inay ka cararaan guryahooda ayna gobolka qarka u saareen cunno yari aad u daran. Kooxaha bini'aadanimada ayaa ka digay xaaladan. Weerarada kooxaha Islaamiyiinta ayaa bilihii lasoo dhaafay kusii xoogeysanayay waqooyi bari ee Nigeria, iyada oo dhowr iyo 10 askari iyo dad rayid ah lagu dilay, beeraleydana lagu beegsaday weerarada qaar. In ka badan 10 sano colaada ayaa waxaa ku dhintay 100,000 waxayna barakicisay malaayiin. Laakiin waxaa hadda kusoo biiray sicir bararka cuntada ee Nigeria oo dhan, taasoo la micno ah in malaayiin dalka oo dhan ay si kalsooni leh u quudan karin naftooda ama qoysaskooda. Save the Children ayaa ku qiyaastay in 700,000 oo caruur ah oo ka yar da'da 5 sano jir ay ka mid yihiin 4.4 milyan oo caruur ah oo ay saameysay cunno yarida, waxayna dowladda ugu baaqday inay ilaaliso beeraleyda ayna ugu deeqdo kheyraad badan gobolka. Markaan aan dib kugu celiyo Talyaaniga, ra'iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga Conte ayaa si rasmi ah loogu doortay hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa 5 Star, taasoo soo afjartay bilo hubanti la'aan iyo kala qaybsanaan baahan ka dhex jirtay xisbiga. Tan iyo markii ugu horeysay ee la weydiistay inuu hogaamiyo xisbiga dhib ka badan bishii Febraayo. 5 Star waa kooxda ugu weyn baarlamaanka kadib guushii ay ka gaareen doorashooyinkii 2018 kadib markii ay qaateen 32% codadkii la dhiibtay. Laakiin taageeradooda ayaa hoos u dhacday sabab la xiriira isqabqabsi siyaasadeed oo dhexdooda ah. Hadda waxaa codeynaya ku dhawaad 16%. Conte oo ra'yi dhiibashadu ay muujinayso inuu yahay siyaasiga labaad ee ugu caansan Talyaaniga kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee Mario uu kasbaday ixtiraam baahsan kadib markii Talyaaniga uu si fiican uga samata bixiyay muujadii xumeyd ee ka dhalatay coronavirus-ka, taasoo galaafatay nolosha dad badan oo reer Talyaani ah. Goor dambe Jimcihii ayaa la doortay kadib codbixin 2 maalmood oo ka dhacday internetka dhexdiisa sababa la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Cudurka COVID-19 oo laga taxadarayo ayay xubnaha xisbiga codkooda siiyeen. Qaar ka mid ah 93% dadkii codeeyay ayaa ku jawaabay haa su'aasha miyaa taageersan tahay doorashada Professor Conte oo loo doortay madaxweynaha dhaqdhaqaaqa 5 Star, iyadoo ay xusud mudan tahay inuusan jirin musharax kale oo la tartamay. Shaqadii adkeyd ee bilihii lasoo dhaafay ayaa faa'iido leh. Hadda waxaan bilaabi karnaa saldhig adag, ayuu Conte ku yiri bartiisa Facebooka, wuxuuna ballan qaaday inuu booqan doono Talyaaniga laga bilaabo Septembarta soo socota si uu ula kulmo taageerayaasha xisbiga dhibka badan ee 5 Star una soo ururiyo fikradaha barnaamijkiisa. Ugu dambeyntiina, Israa'iil iyo Falastiin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahoodu ay duqeeyeen goobaha Xamaas ay ku leedahay Gaza, iyaga oo ka jawaabaya buufinada dabka huriya ee laga soo diro dhulka Falastiin. Ma jiraan warar degdeg ah oo sheegaya khasaaraha ama waxyeelo ka soo gaartay duqeynta lagu bartilmaameedsaday. Waxa ay militarigu ku sheegeen Sabtidii inay ahayd goob gantaalo laga soo riday iyo xarun ay leeyihiin Xamaas oo ah koox awood badan oo ka talisa Gaza. Duqeynta ay sheegtay Israa'iil weli Xamaas kamaysan hadlin tan iyo markii xabad joojintii May 21 ay soo afjartay 11 maalmood oo duulaan gardarro Israa'iil ay ku haysay Gaza. Falastiiniyiinta ayaa si teelteela u bilaabay buufino ay ka buuxaan walxa gubanayo oo ka tallaabaya xuduudda, taasoo dhalisay dabka iyo gubashada beero ku yaala dhulka Israa'iil xooga ku haysato. Falastiiniyiinta ayaa sheegay in buufinada ay ujeedada ugu weyn ay ka leeyihiin ay tahay in cadaadis ay ku saaraan Israa'iil inay fududeyso xayiraadaha saaran ee dhanka xeebta ee la adkeeyay intii lagu jiray dagaalkii May ee kol hore lasoo afjaray. Bilowgii buufinada ayaa inta badan cirkaas u sii shareeray kadib markii Israa'iil ay fududeysay qaar ka mid ah
xanibaadyadii saarnaa Gaza, laakiin jimcihii mar kale buufino ayaa laga bilaabay Gaza, taasoo sababtay ugu yaraan 4 dab oo ka kacay aaga u dhow soodinta Israa'iil ee Gaza. Intaynu warkan war lamid ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.